waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland ee iminka qaban qaabada doorashada madaxtinimo ay ka socoto magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay war saxaafadeed ku socda qaabka iminka uu u socdo u diyaargarowga doorashada dowlad goboleedka Jubbaland. war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa uu u qornaa sida tan: wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda Soomaaliya iyadoo gudanaysa mas'uuliyadda ka saaran hubinta daahfurnaanta doorashooyinka dalka guud ahaan waxa ay waqtiga hadda la joogo diyaar u tahay in ay gacan buuxda ka geysato hanaanka doorashada dowlad goboleedka Jubbaland ee dhaqdhaqaaqeeda hadda lagu guda jiro in ay ku dhacdo si waafaqsan shuruucda iyo habraaca doorashooyinka dalka. iyadoo hadafkaasi yahay waxaa xusid mudan in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ay si isdaba joog ah ugu soo dhacayaan cabashooyinka imaanaya beelaha Jubbaland dhaqankooda iyo musharaxiintoodaba. waxa ay ka cabanayaan baaligu yiri qaabka loo soo xulay odayaasha dhaqanka loo keenay xildhibaanada loona maamulayo geedi socodka doorashada. nasiib darro waxaa muuqata in cabashooyinkaasi ay sii kordhayaan. sidaas awgeed wasaaraddu waxa ay walwal ka qabtaa in haddii tabashooyinkaasi aan hadda la wajihin xal degdeg ahna laga gaarin ay ka imaan karto cawaaqib xumo saamaysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo shacabkeeda. wasaaraddu waxa ay ku adkeynaysaa madaxda reer Jubbaland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha in waqtiga haray ay arrimahan ku baraarugaan sidii looga hortagi lahaa khalkhal siyaasadeed, amni darro iyo inay lunto kalsoonida shacabka waqtiga fog. arrinkani haddii aan wax laga qaban waxaa ka imaan kara khilaaf waxyeelo u geysta habsami u socodka iyo nidaamka dowlad goboleedka Jubbaland. haddaba wasaaradda iyadoo tixraacaysa arrimaha kor lagu soo xusay waxa ay ka dalbanaysaa dowlad goboleedka Jubbaland inay meelmariso qodobada soo socda: 1. in liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulaya in la waafajiyo diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya. 2. in marka hore la dhameystiro soo xulidda xubnaha golaha wakiilada baarlamaanka Jubbaland kadibna baarlamaanka cusub iska dhex doorto guddiga doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxweynaha Jubbaland. 3. in doorashadu ay ku dhacdo hanaan daahfurnaan ah oo xor iyo xalaal ah. wasaaraddu waxa ay cadeynaysaa in aan la aqoonsan karin natiijada ka soo baxda doorasho baalmarsan qodobada kor ku xusan iyadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka. sidaas awgeed wasaaraddu waxa ay reer Jubbaland ugu baaqaysaa midnimo iyo horumar. waxa ayna ka codsanaysaa odayaasha dhaqanka, shacabka, musharaxiinta, golaha wakiilada iyo madaxweynaha, beesha caalamka iyo ciidamada AMISOM in ay iska kaashadaan dhowrista sharciga iyo sugidda amniga si loo xaqiijiyo in Jubbaland ay ka dhacdo doorasho xalaal ah kuna dhacda jawi nabdoon. war saxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli qaban qaabadii ugu dambeysay ee doorashooyinka Jubbaland ay ka socoto magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. inkastoo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jubbaland iyaguna ay soo saareen guddi doorasho cusub, taasi oo sababi karta in xaalad amni darro ay ka dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Jubbaland. halkani waa Cirfiid Media. fadlan subscribe saara mahadsanidin.